haddii haweeney ay awood u yeelan lahayd inay yar ka nuugto baruurtaada adiguna isla markiiba aad miisaan 100 rodol ah ku lumi lahayd ma u ogolaan lahayd. haweeneydan waa bahal baruur nuug ah oo iska dhigta khabiir miisaan dhimis ah kuna noolaata in ay baruurta dadka ka quusto. maalin maalmaha ka mid ah nin cunto jecel oo aad u firfircoon ayaa gaarigiisa fadhiistay isagoo ku raaxaysanaya burger weyn iyo guushiisii ugu dambaysay. wuxuu kaalinta koowaad ka galay tartan cunto cunid ah. laakiin ilbidhiqsi kadib hoos ka soo bood ayaa ka soo baxay kursiga dambe. xanuun fiiqan ayaa dhabarkiisa ka muday ana kuusan xitaa qaylin jidhkiisa oo dhan wuu bilaabay inuu yaraado sidii ballon hawadu kaga baxdo oo kale. daqiiqada gudahood waxaa ka haray oo keliya mayd engegan. dembi baare jack ayaa kiiska la wareegay. wuxuu ogaaday ninka dhintay inuu runtii ahaa orodyahan tartanka cuntooyinka halka ninka keliya ee uu loolami jirayna uu haystay caddayn adag oo uu ku maqan yahay. ka hor intaan jack uusan wax xiriir ah helin qof kale ayaa dhintay dismal gudaha jimicsiga. sababta dhimasha waa isku mid. calaamad wareegsan oo dhabarka ah iyo baruurta jidhka oo dhan oo la waayay. laakiin arrin yaab leh ayaa timid. tababarihii jimicsiga oo haweeney ahayd isla calaamad baa dhabarkeeda ka muuqday laakiin iyadu weli way nooleed. jack wuxuu ogaaday in 2 bilood ka hor tababaruhu ay ka qayb gashay xero miisaan dhimis oo buuraha fog ku taala. halku dhigooda wuxuu ahaa mid laga shakiyo. ma jirto cirbad, ma jiro kaniini, ma jirto cunto xadidan, ma jiro jimicsi. keliya kaalay oo ka bax qurux badan oo caato ah. jack markiiba wuu garwaaqsaday in wax khaldan jira. wuxuu isku ekaanshay macallin jimicsi si uu xerada u galo si qarsoodi ah. maalintii ugu horreysay ayuu arkay in dhammaan dadka halkaas joogay ay dhabarkooda ku leeyihiin isla calaamadaas. ka hor intuu wax badan ogaan walaalkii haweeneyda ayaa ka helay boorsadii booliska ee jack uu gaarigiisa ku qar. haweeneydii way argagaxday. waxay u oroday qolkeyd ah si ay u burburiso cadeymaha ku jira qaboojiyaha. laakiin markii ay aragtay xabadaha baruurta ah ee faraha badan baahidii ayaa ka tan badisay baruurtii ayay wada cuntay.